ila ka tirsan hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegtay in Somaliland ay qaaday dhowr tallaabo ay ka mid yihiin inay shiday qalabka lagula xiriiro diyaaradaha maraya hawada Soomaaliya kaas oo horey u yaalay magaalada Hargeysa. inkastoo qalabkaas muddo yaalay garoonka magaalada Hargeysa balse ma ahayn mid la isticmaalo, waxaana diyaaradaha lagala xiriiri jiray mid ka yaala garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. qalabkan ayaa waxa ay Somaliland u suurtageliyay inay xiriir la sameyso diyaarado marayay hawada Soomaaliya oo ay ka mid yihiin diyaaradda Qatar Airways iyo kuwa kale. dhanka kale Hargeysa ayaa warar aan ka helayno waxa ay sheegayaan in xogo rasmi ah aan la wadaagin diyaaradahaasi, balse xiriiro aan la sameynay maamulka garoonka Hargeysa si aan wax ugu weydiino ayaynu noo suuragelin. duulimaadyada ay sameynaysay diyaaradda Qatar Airways ayaa waxaa ka mid ah dalka Djibouti una socotay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa lagala hadlay taawarka garoonka Hargeysa, waxaana loo sheegay in uu xiran yahay garoonka Muqdisho ayay sheegaysaa xogta aanu ka helnay hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya. arrintaas oo qalqal ku abuurtay diyaaradda sida ay BBC-da u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay'adda duulista rayidka Soomaaliya. Qatar Airways ayaa markii dambe lagala hadlay taawarka garoonka Muqdisho iyadoo si nabad ah ku gaartay halkaas, walow arrintaas ay walaac xoogan ay ka muujisay diyaaradda si aan xogta ku helnay. sidoo kale laba diyaaradood oo isticmaalaya hawada Soomaaliya ayaa xiriir lagala sameeyay taawarka Hargeysa, iyadoo labada diyaaradood la mariyay laba qad oo aad isugu dhow taasoo khatar ku ahayd amniga labada diyaaradood. khilaafka u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ee ku saabsan maamulka hawada ayaa sii xoogeysanaya kadib markii jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida Somaliland ay ka digtay in cawaaqibka ka dhalan kara arrimaha muranka hawada ay mas'uuliyadeedu iyadu yeelan doonin. warkaas ayaana dad badani ay u arkaan inuu yahay hanjabaad ay dirayso maamulka Somaliland. kadib bayaan ay soo saartay Somaliland waxaa dad badan isweydiinayaan tallaabada Soomaaliya ay qaadi doonto. dhanka kale xog aynu ka helnay xubnaha ka tirsan hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa sheegaya mas'uuliyadda hay'adda duulimaadka Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan hawada ayaa kulan ku yeeshay dhanka fogaan araga ee Zoom-ka iyagoona ka wada hadlay arrintan ka soo korortay hawada. shirkan ayaa la sheegay in uu daba socdo dhacdooyinka diyaaraduhu ay soo gudbiyeen oo ah cabashooyinka la xiriira amaro kala duwan oo laga kala siiyay Muqdisho iyo Hargeysa. hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo hore ay u soo saartay waxaa lagu sheegay inaysan wax iska bedelin mid ahaanta maamulka hawada Soomaaliya ayna mas'uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya. khubarada ku takhasusay duulimaadyada rayidka ayaa ka digtay cidda ay ku duldhici doonto mas'uuliyadda xogaha qaldan ee lala wadaagayo duulimaadyada. tan iyo markii dowladda federaalka Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegtay maamulka hawada dalka dhammaadkii sanadkii 2017 waana markii ugu horeysay ee walaac noocan ah laga muujiyo hawada Soomaaliya. Somaliland ayaa ku eedeysay dowladda federaalka Soomaaliya in aysan daacad ka ahayn fulinta heshiiskii maamulista hawada ee lagu kala saxiixay dalka Turkiga sanadkii 2014. wafuud labada dhinac ka socota iyo hay'adda caalamiga ee duulista hawada ayaa sanadkii 2015 kulan ku yeeshay Nairobi, balse wafuudda Somaliland ayaa isaga baxday shirkaas kadib markii ay sheegeen in shirkaas lagu soo bandhigay qabyo qoraal aan waafaqsanayn heshiiska Turkiga. dowladda Soomaaliya oo in muddo ah ku howlaneed sidii ay ula soo wareegi lahayd maamulka hawada taasoo ugu dambeyn hergashay sanadkii 2017. bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $0.5 ilaa iyo $50. haddaba macaamiil ku shuba $0 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. ku shuba $5 oo hel
13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $50 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiye plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig hal eber hal afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo